السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب wanaagsan khiyaaray waan salaamayna dhamaantiina meel walba joogtaan barnaamij kala share gareeyo أهلا وسهلا فيكم جميعا soo dhawaada khiyaarta qiimaha leh waan naga go'ay mar labaad baan kusoo noqonay soo dhawaada ahana la share gareeyo sida ciwaanku ku qoran khiyaarta qiimaha leh waxaan ka hadlaynaa maanta baroordiiq iyo tacsiyada noo taala tacsiye iyo waxaan ka hadlaynaa insha allahu iyo xasuuqii loo geystay ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee u badnaa beelaha Hawiye ayaanu ka hadli doonaa insha allah ala share gareeyo barnaamijka la share gareeyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته habeen wanaagsan khiyaaray dhamaantiinaba meel walba joogtaan waan salaamayna aan yar ka horba soo galnay laakiin waa go'ay internetka xogo daciif ah laakiin insha Allah waan hagaajin doonaa biidin Allah kariim hal share gareeyo waxaan ka hadlaynaa xasuuqii loo geystay wiilashii ku abtirsanayay beelaha Hawiye oo ka tirsanaa ciidanka waxa loogu yeeray qaranka Soomaaliyeed shabeellada hoose lagu xasuuqay oo dhiigooda ilaa hadda la inkirayo cid ka hadashay lahayn waxaan la qaybsanaynaa murugada iyo xusunka la qaybsanaynaa dhammaan eheladii iyo asxaabtii qaraabadii ay ka baxeen ayaan murugada la qaybsanaynaa iyo waxa kale insha Allah aan u tacsiyeenaynaa nabadoon Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle oo kamid ahaa nabadoonada beeshan Hawiye gaar ahaan Mudulood Hiraab ama beesha Abgaal oo galabtii lagu dilay magaalada Muqdisho yani si ula kacan loo dilay cid dishayna waxa weeye way muuqataa waa loo jeedaa qofka dilay waa la yaqaanaa waxaa dilay waa maamulka Villa Marqaan sida hadda wararkan uu soo gaaray xaqiiqada sheegayaan nabadoonka wuxuu kamid ahaa ergadii soo xushay dadkii soo xulay ergooyinkii baarlamaanka ayuu kamid ahaa laakiin waayahan dambe wuxuu kamid ahaa dadka aad ku taageerayay fikradda ah ama maaragtay in la sameeyo waxa loogu yar yiraahdo magaceeda la yiraahdo muxuu ahaa maqaamka Muqdisho ama Banaadir State ama qofba wuxuu u yaqaano yani dadka uu ololaya ayuu kamid ahaa maqaamka Muqdishona waxa weeye wuxuu ka soo horjilidi ku noqonayaa oo yani khatar ku yahay joogitaanka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo soo noqoshadiisaba 2021 soo noqoshada uu damacayo marka saas daraadeeda qof kasto maqaam Muqdisho soo sheego waa la dilaa waa la qaarijiyaa sida maaragtay Cabdiraxmaan Yariisow Allah uu naxariista waxa lagu dilay wuxuu ahaa dad wuxuu ku fakarayay ama yani la shiray odayaal maqaamkan yani ka hadlayay ayuu la shiray ayuu maaragtay arrintan wax ka ogaa sidaas ayaa loo khaarijiyay marka odayga maanta la dilayna waxa loo dilay waa waxyaabaha isaga maaragtay aaminsanaa in maaragtay Muqdisho ay noqoto meel madax banaan maaragtay maamul taliya maamul qabiilista maamul maaragtay musuqmaasuq socda dadku u ololay ayuu kamid ahaa inay noqoto Muqdisho laakiin nasiib daro maanta la dilay ciidanka wax dilo madax jabiska wax dila oo maamulka Villa Marqaan iyo ciidanka shabaabna waa isku dhafayeen waa isla jiraan waa isla shaqeystaan kulligooda waa isla shaqeystaan odayaasha intay dilaan bay shabaab baa sheegta inta wax la qarxiyo iyaga sheegta dadka la dilayna waa dadkan la waay wax kale ma ahan beelahan la dilaa dadka lama diliyo
waxaa kaloo iyadana jirta akhyaarta qiimaha leh oo anaga aan rabnaa inaan ka hadalno insha allahu xasuuqa wiilash shalay dhalinyarada maaragtay ciidanka qaranka soomaaliyeed lagu xasuuqay dowlaadka marka xasuuqaas oo ilaa hadda cid ka hadashay lahayn cid ilaa hadda la iska weydiiyey oo idaacadaha soo istaagtay meediyaha timid raadiyaashii tviyada aan jirin anaga t v baan oo yaala t v qaranka baan daawanaa t vyada maaragtay raadiyaasha baan dhegaysanaa ilaa hadda raggii ciidanka horboodi jiray bil ka hor oo lahaa shabeellada hoosaan aan furanay meel baan xureynay fulaan baan xureynay meesh fulaan baan xureynay shalay waxaa dhacay waa aragteen shalay salaata fajirkii kadib weerar xero military lagu soo qaaday oo la yidhaahdo ku taalo meel maaragtay la yidhaahdo ceel saliini la yidhaahdo oo ku taalo dowlaadka magaalada marko ugu yaraan adiga waxaa ku dhintay 400 oo wiil intaas in lamadan waa lagu dhaawacay in kale ka badana gacanta lagu haaya arrintaana waxaa la leeyahay waa arrin shirqoola la shirqoolay waa arrin shirqool ahaydi looga talagalay in maaragtay beesha maaragtay lagu curyaamiyo beesha maaragtay dadkeeda lagu gumaado ciidanka qaranka lidin sheegayna waxaa weeye oo meesha laga dagaalgeliyeyna waa hal qabiil keliya waa qabiilka hawiye la yihahdo gaar ahaan waxaa u badan beesha la yihahdo mudulood hiraab la yihahdo ayaa u badan gaar ahaan beesha abgaal wax kale kuma jiro waxaan loogu talagalay wiilasha abgaal meesha loo geeyey oo dabkaas shidaal looga dhigtay oo meesha loogu gumaadayna waxaa la doonayaa in magaalada muqdisho la waayo berri wax abgaal la yidhaahdo oo dagaal geli karo wax abgaal la yidhahdo berri maaragtay dagaalamayo oo yacni xuquuqdooda dhacsanayo oo isticmaalka gumaysiga soo socda iska celinayo in la waayo shabeellada dhexena waxaa weeye waa la dagaalgeliyey waa lagu gumaaday shabeellada hoosena waa tii shalay dhacday waa idinka aragteen marka waxaan u sheegaynaa beelweynta maaragtay abgaal beelweynta hawiye gaar ahaan waxaan leenahay siyaasadda laydin adeegsanayo dhalinyaradiina loo adeegsanayo khatarta loo adeegsanayo shirqoolka loo adeegsanayo ka ilaaliya ayaan idin leenahay dhibaatada shalay meesha ka dhacday waa dhibaato aada u weyn waa dhibaato maaragtay musiibo ah oon laga aamusi karin qof maanta soomaali ah oo muslin ah oo damiir leh ka aamusi karin xasuuq bacan loo geystay wiilal maaragtay dhalinyaro ah aan tababar lahayn oon hub ku fulin haysanin oon maxayati hay-ada sirdoon haysanin waxba haysanin ayaa meesha lagu gumaaday waxaan lagu tuhumooyaa inay lug ku lahaayeen qabaa'il degan shabeellada hoose qabaa'il aana qabiil iyo xaqdi cugdad qabiil qabo ayaa wiilasha shabeellada hoose lagu gumaaday ayaa lug ku lahaaba la leeyahay qabaa'il anaga magacood ma soo sheegayno oo la garanayo oo qabiil maaragtay qabiilada degood shabeellada hoose ayaa ku lug lahaa iyagoo maaragtay kuga aargoosanayo haweenimo uga aargoosanayo oo wiilashan meesha lagu gumaaday lagu xasuuqay waxaa la leeyahay waxaa lasoo siiyay booral al-shabaab waxaa loo soo geliyey dharkii daraaska ciidanka federaalka ciidanka qaranka soomaaliyeed wacalaykum assalam waraxmatullahi barakaatu waa ku salaamaya ladan aad ba ku salaamaya barnaamij sheer garay waa barnaamij muhiim aan ka hadlayno aan uga hadlayno xasuuqii boroordiig baan qabnaa maanta xasuuqii ka dhacay shalay shabeellada hoose hal sheer gareeyo 4-5 group ha lagu tuuro barnaamij waa masiiri waa barnaamij muhiim waan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa wiilashii shalay lagu shirqoolay shabeellada hoose oo ay gumaadeen koox maaragtay qabiil ah oo maxay ahayd magaca shabaab wadato boorar shabaab wadato ay meesha ku gumaadeen baaritaan baa socda baaritaan madax bannaan aan dawlad ahayn baa socda way ku soo caddaanaysaa hadday ku soo caddaato inay qabiilkaas ay lug ku leeyihiinna berri waxaa weeye waa la iskula xisaabtamaya qof walbaa lagula xisaabtamaya qabaa'il degan magaalada marko oo meelahaasna dego ayaa lug ku lahaa sida la sheegayo magaciis ma sheegayno inaga kolleyba idinka waa garanaysid ilaa 400 baa la dilay waa aragteen subaxi baa lagu soo kallahay iyagoo teenooyinkooda qaarkood ku jiro qaar iyagoo ordaya la dilay
qaar la gumaaday kulligooduna waa wada hawiye kulligooda waa wada hiraab waxaa u badan mudulood hiraab baa u badan halash baliis hala sheergalo barnaamijka ha loo gudbiyo barnaamijka 5 group 6 group lagu tuuro waa barnaamij masiiri ah barnaamij aan uga hadlayno xaqiiqada ka jirto meesha aan uga hadlayno habeenkii isniintii ka hor maaragtay inta dagaalka dhicin oo wiilasha la xasuuqin ciidan military ama saraakiil marixaan ah oo ciidanka la joogay ayaa habeenkii diyaaradaha helicopter loo keenay lagu daadguray oo weli qabiilka ani ma aqaani ma garanayo qabiil la yiraahdo reer dalaal ma garanayo marixaan ah ayaa diyaarad lagu soo daadgureeyay kulligood waxaa la keenay magaalada muqdisho intay wiilash soo shirqooleen oo argagaxisada iyo qabaayilka argagaxisada ayagana ay wiilashii maaragtay meeshay ku jireen meeshay joogeen ay usoo sheegeen ay wixii dhan soo diyaariyeen ayay ka tageen meesha ugu tageen waxaan ka codsanaynaa ninka garaadada lagu taxay maaragtay mas-uulka laga dhigay ninka odawaa la yidhaahdo waa inuu idaacadaha soo istaago oo soo sheego siday wax u dhaceen ninka lagu bedelay indha qarshe ninka lagu bedelay garaadada ku qaatay maxay ahaatay darajada ku qaatay xasuuqa iyo dilka iyo dhibaatada maaragtay wiilasha hawiye waa inuu soo caddeeya beri waa lagula xisaabtamee waa inuu idaacadaha soo istaaga uu yidhaahdaa waanu tacsiyeynaynaa fulaan baan dhintay fulaan baan dhintay fulaan baan dhintay saana wax u dhinteen odawaa waa lagula xisaabtamaya berri abgaal way kula xisaabtamayaan cid kaa aamusaysa ma lahan maalintii darajada lagu siiyey shalay waa horboodaysay waxaa leedahay waa ciidan qaran meel fulaan bay furteen meel fulaan bay sameeyeen maantana marka la gumaaday ay dhammaadeen oo la xasuuqay oo cagta la mariyay oo la dhameey waa aamusan tahay villa marqaana ku qayloysaa laakiin ha u malaynay in laga aamusan yahay in lagu iloobay ha u malaynin hooyooyinkii iyo caruurtii laga dhintay aabbayaashooda ay dhinteen meesha lagu gumaaday iyo wiilashaas walaalahooda kulligooda waxaan leenahay dhammaantooda waxaan leenahay wiilashiina waxaa shirqoolay waxaa ka mid ah odawaa baa ka mid ah odawaa wuxuu ka mid yahay dadka wiilashiina shirqoolay xaqiina ka qaata ayaan leenahay ilaa haddana waxaa la dafarooyaa oo been la sheegayaa la leeyahay wax ku dhintay ma lahan 2 wiil 4 wiil baa ku dhimatay bilaahi calaykum anagu ma qarnigii 19aad maan joogna anaga qarnigii 18aad maan joogna ama 19aad anaga qarnigii 21aad baan ku jirnaa 21 century baan ku jirnaa 21 qarnigii 21 qarni technology baan ku jirnaa oo daqiiqadaas wixii dhacay ku soo gaarayaan baan ku jirnaa qarni wax la qarqaray kuma jirno anaga sheer gareeya barnaamijka biliis and biliis qof walba oo Soomaali ah damiir leh oo beeshan hawiye sharafta leh oo la dhibaateeyay oo siyaasiyiinta caada qaatiyaasha oo siyaasiyiinta oo aan damiirka lahayn ilaahay ku ibtileeyay ilaahay qoorta u geliyay ha gaaraan barnaamijkan hal sheer gareeyo barnaamijkan waa barnaamij masiiri ah barnaamij masiir beel dhan looga hadlayo hal sheer gareeyo raggii meesha wiilashaas geeyay mala socotaan dhalinyaradii gabdhihii wiilashii isku soo sawiri jiray iyagoo saaran tiknikada 2 bil ka hor oo odawaa hor socday inaysan hal qof maanta ka joogeen mala socotaan oo kulligooda la gumaaday kulligooda wax dhaawac wax dhintay wax cararay duurka ku jiro maaragtay dhoobeyda kanaaco ku cunaysa oo naftooda la cararay wax la la'yahay meelay jaan cirab dhigan ilaa hadda inay yihiin mala socotaan oo meelay ku dambeeyeen la aqoonin la ogeyn cidba ogeyn gaarsiya barnaamijka hala gaarsiiyo intuu meeshuuba gaaraya hala gaarsiiyo xaqiiqadan ka hadlaynaa runtaa la isku sheegayaa wiilasha shalay la gumaaday dhiigooda waa la xaqiray lama sheegin idaacadaha lagama sheegin dawladdii way xaqirtay way qarisay way qariyeen iyadoo indhaheed shanta inaga aan u jeedno oo caalamka dhan u jeedo oo gaale muslim idaacadahooda ay kusoo qaateen ayaa TV qaranka laga soo deyn waayay ayaa mas-uuliyiintii wasaaradda gaashaandhigga ay ka hadli waayeen dhiig umad dhan la inkirayo xaggee ku aragteen
ورشلي مركل عيدمدا كينياتيga la gumaaday ciidamada Kenyaatiga marka lagu gumaaday ceel cad lagu gumaaday waa tii aad u sujuudaysiin waa tii aad u dukuteen oo u sujuudayseen ciidamada markay Uganda's marka lagu gumaaday Shalambood iyo meel walba waa maaragtay waa kuway maaragtay diyaaradaha loo soo diray war waxa lagu leeyahay maxayati gurmad looma soo dirin diyaarad looma soo dirin daawo looma soo dirin ciidan kale looma soo dirin meeshii bay kii dhaawaca ata wuxuu dhintay dhiig bax buu dhintay duurku u dhintay cid gaartay ma lahan baynama ciidanka Afrikaanka ahaa markii shabaab ay gumaadeen oo la dhibaatay diyaarado loo diray ciidamo gurmada loo diray qof walba ay Soomaalida ay ku kala hormarayaan Soomaalida oo dhanba waxa way mas'uuliyiinta siyaasiyiinta dhamaantooda ay ku tartamayaan maaragtay idaacadaha ay leeyihiin waxaan ka tacsiyeenaynaa dhamashada maaragtay ciidanka nabad ilaalinta African Union AMISOM qof walba leeyahay baynama wiilashii Soomaaliyeed wiilashii hawiyaha ahaa wiilashii xalaasha ah oo maxayati oo muslimka ah oo dhiigooda la xaqirayo oo cid u tacsiyeynaysa lahayn social media looma tacsiyeynayo idaacadaha lagu tacsiyeynayo siyaasiyiintii qof ka hadlaysa ma lahan qof sheegaysa ma lahan qof maaragtay ihtimaam muhiimad siinaysa ma lahan warsaan Soomaali lagu ma noqdo saan maaragtay Soomaalinimo ma ahan islaamnimo ma ahan sidaan hal dhaamo Soomaaliya sidaan hal dhaamo qof walba waxaan leenahay boor casaana ha soo saarto maanta qaranka la sheegayo dadka difaaci anaga waay qaranka dadka ka naxayo anaga waay wiilashii magaca qaranka lagu qalday maanta magaca qaranka maaragtay maanta lagu qalday kuwa maanta meesha lagu gumaaday waay anaga aan u hadlooyn maanta berrina waxaan sameynaynaa insha Allah aan sameynaynaa guddi gaar ah oo baarayo tirada maaragtay wiilasha la weysan yahay halkay ka kala imaadeen oo qabaayilka ay u wada dhasheen ayaan insha Allah dad baan u xilsaaraynaa tiradooda intay la eg tahay hooyo kasta wiilkeeda ka maqan yahay aabba kasta wiilkiisa ka maqan yahay islaan kasta naag kasta oo ninkeeda ka maqan yahay wiil kasta aabihiis ka maqan yahay waxaan u xilsaaraynaa guddi gaar baan u xilsaaraynaa oo maaragtay lagula xisaabtamayo bari odawaa lagula xisaabtamayo farmaajo lagula xisaabtamayo khayra lagula xisaabtamayo mujrimkaas lagula xisaabtamayo waxaan halkan ka sheegaynaa aan ka ogeysiinaynaa ogeysiis ugu diraynaa dadka Muqdisho jooga iyo shabeellada dhexe wiilasha laga wada keenay iyo gobolada kale laga keenay oo u wada dhashay hawiye u wada dhashay hiraab u wada dhashay waxaan u sheegaynaa inay la soo xiriiraan idaacadaha dadka waalidiin ilmahooda ka maqan dadka maaragtay waalidiintooda maqan dadka hooyooyinka wiilashooda maqan nala soo xiriiraan si aan u ogaano tirada maaragtay xaqiiqada loo ogaado meesha waxa ka dhacay loo ogaado maxay sida waxa u dhacay loo ogaado waa in si toos ah ula soo xiriiraan tira koob lagu sameeyaa anta dhamatay tirada dhamatay haddii dad ay ka badbaadeen oo duurka ku jiriyo dad baa la haysta hadda dad baa la qafaashay dad baa ilaa hadda u xirxiran maaragtay qabiilkii ku soo duulay anagu al-shabaab ma dhahayno al-shabaab ma ahaan meesha al-shabaab baawarna kuma lahan waa qabiilka meesha degan waay sida wararka hoos ugu soo gaarayaan xaqiiqada jirto qabiilka meesha degan oo shalay uu tagay maaragtay ninka la yiraahdo Xasan Ali Khayr uu tagay farmaajina hubka siiyay oo looga talagalay in maaragtay looga argoosto maxayati beelaha hawiye wiilasha hawiye looga argoosto oo lagu dhibaateeyo shabaab ma ahan waa dad ogaa waa dad maaragtay maxayati la socday waxa u socdaan la socday dadkii wiilashan gumaaday waan la isula xisaabtamayaa wax kastana waa la ogaanayaa dadkii ka badbaaday wax badan way og yihiin berri maalinta ku soo cadaato inuu qabiilkaas haddeen lug ku leeyihiin meeshay gal lahayn ayagaa la rabaa hawiye waa beel weyn waa beel maaragtay baawar leh waa beel maaragtay maxayati la yaraysan karin baawarkeeda berri haddii ay ku cadaato salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. wiilal beelaha wiya ciidan qarafaadkii liina soo qalday annaga mar hore aan sheegnay maalintii dagaalka la geliyey ilaa haddaan sheegay marka suuq baan idin wada shirqool baan idin wada shirqool baan idin wada maanta shalay laasta shirqool dambe shalay afar kulood lagu dilay labada maaragtay la qafaashay wixii uga haysteen hubkooda waxaa loogu talagalay in beelaha meesha degan loo gacan geliyo fahmaysa هذه إن الله نحرسه الله نحرس كتير وثانية والله نحرسه دكتور الله إذا هاي هذين وطن هاي هذي أنت سكروا لي متاعي تايوان كان إحنا اللي ونحكم بالله هاي إذا كا كل باب هاي وكل وطن اللي رأسكم ساكن ولا قبضي برديري كل بقيست برمات ما يشوف جي يروح الله المعنى مركا نقول دبان هاي رو بوجي هذا سكت لفت جودا من هالكاس هذا يو هالكاس بوجي أصلا مشارك هذا halkaa la geeyey hadal laga wargeeyey inuu dhimanayo laa shakila wey ma garad sax waxaa ka sii daran taas dadkan ay ka dhasheen oo madaxweynayaashii hore oo shariif xasan sheekh oo kale waxay u barooranayaan maxaa kismaayo nolodeedi ma garad kismaayo nolodeedi sax dadkoodiina ka hadli maayaan oo la baabaashay ma garad marka niyo nasiib darro waaye in ay xataa ay ka tacsiin waayaan kullay dawladdooda meesha waxay u geysay wax kale ma ahane nimankaas dee in la kala yareeyaa in la kala yareeyo sax waa la socotaado ciyaal yaryar oo aan macnaha wax experience lahayn oo aan ciidan weligood soo marin ayaa la geeyey meesha oo la arooriyey waxaa la yidhi halkaas taga jaadna waa loo geeyey ma garab kabacdina markii cadowga waa ag joogin way baabaasheen kabacdina maraykanka iyo kooxdii kale iyaduna gaalada ay dalkay ka duqaysay saas horta nimanku meesha waxay ku baaba'een kulley dagaalama jiray kaanka waxyaaba kumaas diyaarada military galbeedka leeyihiin waa maaragtay ilaalin jiray yani kala socday kuwaan khudbad looma fadinin wax walba loo sameeyey ma lahan meeshii baa si toos ah nolosha kulaaday waxaa kaloo jirta cabdiraxmaan habeenkii shirqoolkan subaxii dhacayay habeenkii waxaa lagu leeyahay waxaa laga soo daadgureeyey meesha la yidhaahdo saldhigyada reer saliid yaala waxaa laga soo daadgureeyey ciidanka gashay meesha mareexaan gaar ahaan meel la leeyahay magaceeda lama garanayo reer dalaad ayaa diyaarada kumaadka ku kaca laga soo daadgureey baa lagu leeyahay xamar ka soo qaaday taasna waxay caddaynaysaa sida wiilasha ka fakaday maaragtay masuuqada ay sheegeen in arrintan shirqool ay ahayd lagu rasmi see u arkaysaa in maaragtay arrintaasna ciidana la soo qaado uuna maaragtay meeshaas shir أنا شغال هاي دورته وماشي المكان اللي جاي ماشي كذا كأجت أنا شغال وياه عد ما أنا إنسان معهن عد كلا وعد أنا وياه ذو سيبه ذو كل حدا يقرأ أو مال أسران مال كان أنا كريني من طب كان الغشوة طب كان ده والغشوة يقرأ أول مرة فرصة ماشي هو يعني من حتى كل دولة Soomaaliyeed oo dagaalamay cid maantay waddanka dawlad rasmi oo caadi kama jirto ama meesha jooga nimanka jooga inkastoo magac dawladeed ku ay macnaha ay ku matalayaan ummadda Soomaaliyeed haddana ma ahan dad u tababaran ama arrimaha experience u dhaman garab waarunta walaalkay Cabdiraxmaan ciidankii u soo tababaray Turkiya iyo Qatar iyo Eritrea iyo meelaha kulligoodu waa ciidanka laga dhigay security-ga gaarka ah ee ilaaliyo amniga magaalada Muqdisho kuwii maaragtay maraykanista ah oo tababarka lahayd oo sidii qoys loogu soo waday
jaamacadda ugu soo baxay ciidan baa lagaa dhigay yiri waxaa la keenay ururka dagaalka la keenay dibadda la keenay soo marin xaggaas iyagoo maaragtay waxba maaragtay soo marin marka taas xaggaas saraakiisha ciidanka iyo gaar ahaan gaar ahaan ninka yidhaahdo odawaa la yidhaahdo waa lagu xisaabtamayaa oo iska aamuso ilaa hadda hadda mar laga hadla odawaag waa cunug yar oo meelaha joogi jiray oo isagoo dhanba meelaha ciyaalkii sida joogi jiradoo ciyaalka xaafadda uu ka mid ahaa kabacdina waxaa la yidhi taliyi guud ee waxaa tahay militariga soomaaliya sidaasaa meesha lagu geeyey waxaa sidaas meesha lagu geeyena dadkan lama rabo dad aqoon leh ama macnaha aqoontooda fiican tahay in waddankan ay maamulaan ama ay macnaha hore u socodsiiyaan waddanka dadku dibidhac baa lala rabaa dibidhac meel يعني dibidhac u socdaana هدف سياسة مفشلة يعني يعني تارجت مفشلة وتارجت قاعد اللي يعني هو الربو يعني مش هكذا سومان aad iyo aad aad iyo aad marka nimanka la yidhaahdo dadkan hadda anugu dhibban ma arkaba nimankaan kolley maajo cadow muxuu ahaa oo dadkan uusan jeclayn dad kasta waa ogaadeen laakiin kuwan hawiye dadkooda laynaayo oo waa maqlaysa shariif iyo ku haya aeroboortkii baa naloo diiday kismaayo madmadow dad hawiye oo ku xasuuqa maalin walba oo leeyahay maxaa nagula celiyey magarad ayuu gororanayo oo leeyahay hataa dadka ha bannaan bixin oo wax noocaasa uu ku hadlayo ku hadaqay waa arkaysay marka inaad kuwaas ka hadashid oo muhiim ما كواس لما هذا يو كواس ما أنت يعني يجوا مارك قيمة إليه ملهن ودت قيمة جبي كواس لما هذا يو أنا مسير كان كهذا أخيرا يسود هذا برنامج كان شير قرية وبرنامج مهم وأنا واحد لينو وده مارك تي وده دقمات ما أنت لقود لي مقالة مقدشو وكم إذا وضياشي مقامكم مقدشو ولا ليني iyo wiilal tababar lahayn oo jabhadii dagaalka lagu guray oo banaacidaa lagu xasuuqay iyo waxa kale oo ka hadlaynaa insha allahu dhibaatooyinka waan ka xunnahay waa naga go-ay qadkaa naga go-ay sheer gareey akhyaar hal sheer gareeyo barnaamijka isgaarsiya waa barnaamij muhiim ah farxiyo maxamed kaamera soo qabso qofkii rabto inay soo qabsato كاميرا صوت أبو بليس كبح كاميرا صوت أبو إنترنت كنا قد كيس عاد وليتا لكن وان سوق بنينا تعسيد أنا وحاوية وان تعسيدنا ضمان تانا وحنو تعسيدنا ضمان تذكر جيريودي وويلاش لقى حسوقي لأن نفتنا وتعسيدنا يو قرابضنا يهل كينا يو ضمان ومد سوماليات أنت مقع قرن جعل وحاوية مقع عيدن قرن سوماليات جعل أيام تعسيدنا شلي مركي ويلاش أن دقالك قليين waa la boodboodayey idaacadaha dhanaa lagu sheegayey websayada dhanaa lagu soo sheegayey maantana markii maaragtay meeshii lagu gumaaday wallaahi hal qof oo soo sheegtay ma lahan dhiigooda dhanaa la inkiray ayaga dhan baa la inkiray inay jiraan maanta markay iyagoo la gumaaday la xasuuqay soomaali ma ahan waa hawiye maanta ciidan qaran ma ahan laakiin shalay markii la rabay in siyaasad lagu fushido shalay la rabay in target maaragtay wax lagu samaysto dan gooni laga lahaa waxaa weeye beejaj kala soo saaranayey waxaa la soo saaranayay maaragtay videoyadooda la soo qaadanayey maantana markay dhinteen maantana markii la xasuuqay hal qof oo maaragtay ama xitaa u tacsiyey ma lahan hal qof oo yidhi waxaan u tacsiyeynay wiilashii maaragtay shalay meesha lagu gumaaday asalaamu calaykum ii waran see tahay الحمد لله سودو سعدي سودو وأكو سلامة يا وحن كان ما أنت وحوي وحن كان لوينا وحنو تعسييننا هذه قرابتي قوسكي دتكي سوماليات كجيريودين ويلاشي شلي لو حسوقي لو شرق قولي مقالة دولات كمركة إيو نبضونكي الجود لي أسجنا مقالة مقدشو إيو سيادو أركتا إن أمد الصوماليات أي نقطة أمد منافقة أمد نفاق إلهي الرسول كفرتي نقطين ويلاشا مالنتي أيوة ماركتي أدواء هربودي أو استعراض كعملتلي كيسمينيان دولتوس كيسمينيان لغو فاني عيدن قرن كيبا ميشان فرتي ساس يلي فلان يلي
fulaan qaran iyo aamana qaran iyo cajuuse qaran iyo balaayo qaran kulligooda iyo midnimo qaran iyo wadani iyo balaayo wadani iyo beeyadkooda soo saaranayaan maanta maxaa u diiday inay yidhaahdaan waxaan u tacsiyeynaynaa wiilashii ciidanka qaranka soomaaliyeed ka tirsanaa oo shalay lagu xasuuqay magaalada maaragtay duulaadka magaalada marka maxaa u diiday sideen soomaali ku noqonaynaa sideen isku jeclaanaynaa sideen maaragtay isku aaminaynaa haddiiba maaragtay marka iyagu ay dhintaan oo maxay la xasuuqana ayagu ay hawiye yihiin qabiil yihiin marka maaragtay magaca iyo sawirka madaxweynaha ay wataanna ay yihiin ciidan qaran wallaahi waa arrin aad iyo aad looga danqado annaga waxaan nahay dad soomaaliyeed kulli soomaali waa dad walaalo islaam ah qof walba oo dhibka gaarana waxaa waaye waa in loo wada danqadaa dadkii horta naxariistii way ka guurtay aakhiri zamankiyaa lagu jiraa ilaahay khaatimudaha nagu dilo laakiin waxaan aan leeyahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun dadkii dhintay ciidankii dhintay maanta ma aragtay dulmanaa maanta go'doonka naqday wax caawiyana waayey dadkii shalay mas-uulka ahaa dirayna aan ilaa hadda ayna ka hadlin ilaa haddana laga hadloonin mar walba arrimahan camal waa la qariyaa lagama hadlo ciidanka dowladda kama hadasho dowladda mar walba jabka ku dhaco ciidanka way aamusaan marka ciidanka dadkooda ayaa u danqanayo waxaan leeyahay ehelada iyo qaraabada ay ciidankaas ka geeriyoodeen samri iimaan allaha ka siiyo inta kale oo maanta gacanta cadowga ku jirto oo ilaa hadda ay haystaan qaaraa nolosha lagu haayaayaa la yiri mi fahamtay qaarkaasna ilaahay ka soo saara gacantooda gacanta cadowga waxaan leeyahay dadka walaalaha familka oo dhaleen dadkaas ciidanka mar walbaba dhalinyaradan la qaldaayo beenta loo sheegayo oo meesha go'doonka ku naqanayo oo aan hub iyo waxba aan haysanin inta la qalda la qoro ilmahan dad yar waaye dadkan dad yar waaye waa dad ma aragtay gaajo looga faa'iidaysanayo marka waxaan leeyahay dadkooda mas-uulka ka ah ha ka taxdiraan meeshan mas-uuliyiin ma joogaan dadkan dhalinyaradan lagu haleyn kara ma jiraan waa dad khayr mas-uul ah marka way dayacan yihiin dhalinyaradeeni meel walbay ku dayacan yihiin marka insha allah biidnillah waxaan u rajaynayaa in ma aragtay ay marka dambe ka digtoonaadaan si ay ma aragtay ugu taxdiraan aan loo qaldin mar dambe insha allah biidnillah aadan kuu salaamaa dadka kalena jaaniska الله ونحريص aad baad u mahadsan tahay ku salaamay barnaamijkeena sheer garay ku tuur meelahayo xagaaro maaragtay akhyaarta qiimaha la soo dhawaada dhamaantiinaba qofkii ka ay u tacsiyeynayso dadkan dhintay ha soo qabsado dadkii la gumaaday la dilay waa dad Soomaaliyeed waa wiilal Soomaaliyeed magaca qaran watay been loo sheegay ciidan qaran baatiin been looga sheegay ayaa meesha lagu gumaaday waxaa ka sii daran oo ka ceebsan maanta oo wax laga yaxyaxo laga xishooda ah dadkii ugu qoranayday magacooda ciidamadan u saaranaa beeyadkooda oo la dhihi jiray aamina qaran iyo cajuuse qaran iyo cajuuse wadani iyo balaaye qaran ay u qoranaan jirtay kulligooda maanta lama hayo maanta hal kelimad oo allah yarxam shuhadaagaas ilaah u naxariista lagama hayo hal hadal lagama hayo meel ay ku dambeeyeen lama og shalayna markii maaragtay dadkan ay dhoolatuska samaynayeen ay ordeeyeen oo isticraadka la samaynaya annagana aan ugu digaynay aan lahaynay war shirqool baa laydin wadaa war shirqool baa laydin wadaa yaa telefisyoonkeeda sawirayo tv-ga asalaamu calaykum عليكم السلام يو تلفون بقى يقول marka niyo hadalkayga sii watay aniga waxaan u arkaaba arrimahan inaan ku horta maalin walba tacsi joogtaa lama wada kala ma garata sax haddaa maanta tacsiyeysid beri waa tacsiyenaysaa saatan baa tacsiyenaysaa maalin walba inaad tiraahid allah u naxariisto allah u naxariisto waxay soo kordhinaysa male maan sax waa in yani ficil la sameeyo in ficil la sameeyo oo dadku ama caada ka dhigtaan oo ku dulqaataan oo macnaha aan laga hadlinin
iyo in dadku ay ka foojignaadaan dadkan especially dadkan hawyaha ah adigu waa ka soo jeedin oo ayagoo iska hurda oo aan ciidankoodii iyo magaaladoodii dadkoodii aan war ka haynin u xanaaqsan kismaayaa laga celiyey oo anagu gurigay gubanayaan oo gurigay kismaayo maxaa ugu diiday aan ka soo qaybin waaye dadkaa u xanaaqsan inaad ka hadashaa fiican ma garata dowladdu waa ugu tala gashay isug markaan kaaga jawaabay aad iyo aad marka jaaniskiisa inaan kaaga jawaabo dadkan in macnaha la baaba'sho oo saatan lagu galo oo macnaha meeshii dib ka jira la geeyo waa shay daruuriya shayga daruurigana waxaa weeye dadkaana waa hawiye maadaama ay yihiin dad ay ishayaan baa xilka haya oo iska soo jeedaan oo special daarooda dee nin cadowgaagaan inuu kaa naxo cadowgayga muxuu iga nixi waadaa wadaa warka hadda warkaa waxaa weeye cadowgayga aniga muxuu iga nixi waaye ma garad waana cadowgaagii ya qof cadowgaagana kaa naxi maayo wuuna ku geynayaa gurubka hadda midnimo qurun dadku inta badan u yaqaanaa midnimo qurun oo kulley dawladda laga taageero hal qof oo ka hadlaay iyo hal qof oo le waa la dilay xataa arki maysid gebigood waa ku faraxsan yihin waa waxa gaabtay waa hawiye waa cadowgii kulley ay ishayiin cadowgii baaba'ay oo marka hore de kula socdanaa de waa wax adiga kaa naaqusee wax adigu aad macnaha ku soo siyaaday ima dhibaato ku haysa maaha ma garad waa faa'iida ayagu helen la socotaa faa'iido weeye brother faa'iido weeye inta waxaanu ay jiraan waa hawiyu qaabkan uu yahay oo ummad kale u sacbatumaayo oo liidaris aysan ahayn saasaa lagu baabi'inayaa meel kastana lagu geynayaa waana wax loogu talagalay dadkan dadka ka qaban lahaana waa kuwa hadda xanaaqsan oo meelo kale u ordaaya oo kala yaacaya oo dad kale danahooda ka hadlaaya ma garad fahmaysaa marka qof gurigiisii ka hadli waayey oo u xanaaqsan guri kale oo nin kale degan yahay ninka weliba cadowgiisaha uu degan yahay uu leeyahay kaasaan raba inaan wax ka soo sameeyo ama aan u soo hambaliyeeyo nin noocaasa intuu meesha jooganayow wax kala soconaaya ma jiraan farmaajo iyo axmed madow ma kala sokeeyaan waa laba nin oo imaadeena ma garata fahmaysaa waana isla jiraan xabaddan isku ridaana ma ogola men ya haddeertaan maalinta dhaweyto jubbaland hadda cunaqabateyn baa lagu soo rogay diyaaradaha waa sax haddana lacagtii baa lagu fasaxay oo galmudug iyo puntland iyo hirshabeelle iyo jubbaland way wada qaateen mamaliya bay qaateen marka cunaqabateed waxay ga jirtaa xafiiska dowladda waa lacagta fasaxaye ma waxaa jira cunaqabateyn ma jirto ma garad
waxaan iyo waa wax la isla ogyahay waa barnaamijkuna waxaa weeye waa wax dadku inay fahmaan loo baahan yahay oo dadku kolley markuu caqligooda soo noqdo ayaa laga hadli karaa laakiin hadda lagama hadli karo anigu waxaan aaminsanaaba dadkaan dhintayna dee allah u naxariisto waddo fiican oo haddeertaan oo ay ku dagaalamayeen oo la dhihi karo oo waa saxsanaayeen oo dad hawiyaa baa meesha ku diray kulley oo geeyey oo malgey waana carruur soomaaliyeed waana dad laftigooda ka maqan oo ummadda dhan ka wada maqan annagu waxaan kusoo qaban karnaa allah u naxariisto laakiin inaad gacdi hawiye in laga hadlo anigu waxaan u arkaa xaaraan maqdhaca ma garad wax hawiye la yidhahda ma jiraan saasa okay cabdiraxmaan su-aasha kale ku weydiinayo maxay tahay sababta shirkan suuqan shalay uu dhacay sida badan soo dhacay ilaa xalay ilaa maanta waxaa lagu sheegayaa sababta loo waayey hal mas-uul ama mas-uuliyiinta labada dhexdeen wasaaradooda gaashaandhigga ama wasaaradaha maaragtay ee saraakiisha ciidanka ama mas-uuliyiinta maaragtay dadkii meeshaan delayay siyaasiyiintii meelaha weyn odayaashii dhaqankii waxaa loo waayey qof hadlo bas leedahay yani meeshaan yani qalal baa jiro dadkii cabsi baa jiro su-aal baan ku weydiinayaa kuwaanu waa kuwii dawladdee oo meesha geeyee kuwii ay ehelka ahaayeen oo walaalaha ahaayeen oo wada dhasheen adeerka saddexaad ugu aadiraa wax ka hadlaaya maarag kuwaas baan sheegaya aniga sababtay kuwaas cabsi bay ka tahay wadda bay ka tahay ma yani ogaal la-aan bay ka tahay yani maxay ku hadlaayihiin oo yani intay idaacadaha soo istaagaan waa ka xunnahay in maaragtay dad intaas la eg dhulka loo fidin waayo umaaday xiyati dhaawacyadooda dhulkay ku dhinteen qaar ilaa dib u geyn laga hadlay yani dad dhan oo intaasoo dadooda ay la eg tahay ciidan qaran ahaanna maaragtay u diiwaan gashan in la eg karo dhiigooda iyo wixii ay qabanayaan uu sheegaya oo uu sawirayay yani wax fiican ba wax fiican maahan horta waa wax aad u fool xun inay ka hadlaanna way ahaayeen inta shaloo dhan ku hayeen nin baa meel loo diiday nin baa meel kasoo xanaaqanta ku hayeen in arrimahan sheegaan oo yidhahdaan dad baa dhintay dad baa yaalla dawladda ha lala xisaabtamo ha laiskugu yeero dadkan macnaha dawladda ha loo gudbiyo ma arkaysid laakiin waxaa laiskugu yeertay nin baa airboor laga soo celiyey keliya waxaasaa laiskugu yeertay taasna inaadan caqli maaha qofkaas qof dan u hayo dadkaan maaha runta marka laga hadlaayo marka meesha wax ka qaldan yihin waa inaad tilmaantaa adigu daaroodka iyo ku dheganaanay daaroodka hawiyahan jecel oo madaxda ah oo kan hadda meeshaas geeyey oo ciyaalkaa meeshaa geeyey waa nin hawiyaa wuxuuna aaminsan yahay ninka daaroodka inuu yahay nin madaxweynaha oo ilaahay u soo diray oo aaminsan yahay oo isagu badbaadin doono aakhirka fikrad kan hawiyaha oo kaloo xanaaqsan laftigiisu caaqabo kuma xanaaqsana wuxuu aaminsan yahay inuu midka waa adigu waxa hadda la isku dagaalayaa wuu isku dagaalayaan waa daaroodka se lagu kala jecel yahay daaroodka okay meeshaan laba nin oo daarooda la kala jecel yahay ma garad daxway cabdiraxmaan su-aasha taasna daladeedu saaxib aad weydiinoo dadka aan kusasiilayna waxay tahay su-aasha ugu dambaysa shalay markii dagaalka socday wiilashaan ay samaynayaan quduuska oo idaacadaha ay soo sawirayeen waxaan arkaynay in aamina qaran iyo cajuuso qaran fulaana qaran jini qaran jini wadani cajuus wadani axmed wadani cabdullaahi wadani malaayin kulkooda ay beedadkooda kala saaranaayeen ay ku faanayeen ay lahayn ciidankeena qarankii xoog yeeshay baawar yeeshay meel ureynaya maanta maxaa loo waayay faadima wadani iyo cajuus wadani iyo fulaana wadani ay maanta ku tacsiyen waayeen uur waaye inay yidhaahdaan ilaahay u naxariisto matay dagaalkaas inta dhaawaca ilaahay caafiyo inta gacanta cudurkiisa ilaahay kasoo diyo maxaa loola daweysan yahay ii sheeg shalay soomaali ahaayeen markii la rabay in maaragtay ahdaaf dalka lagu fushado maanta markay dhinteen bay xukuumadeen maxaa jira seema ku jiraan ummadda maxaa ku dhacay ummadda niyow kuwa horta midnamo quran midnamo qabiil dadku taqaanaan oo kulley waa dad qabiil ah oo hal beel u badan haddii dad mareexaana dhiman lahaayeen ama dad macnaha beelaha kasoo jeedaan oo kale ay dhiman lahaayeen waa dagaalami lahaayeen waana xaytami lahaayeen meesha dhan waa isqabsan lahayd ayagoo baruudeeqaaya ma garad
صحوة واحد أنت وهوية وأي دنتنا ده فائدة ملا بقرب وحلا شيء معنا مركا islaamahan iyo odayaashan ka qayliya facebooka oo ka nacnacira hada stress ku hayo oo soo gala oo ilka qaran baan ay yiraahdaa waa wax qaaqlayaal oo meesha mushaarka ka qaata dawladii ka weyneed baa ka hadla weeday oo sheeganaysay oo meesha geystay baa ka hadla weeday kuwaas inay ka hadlaan wax dhibaato iyo wax hadda ay soo kordhayaan male kulli mushaarkooda meesha ku qaataan meeshaasna ka qaaqlayaan oo calan beena bay wataan oo afka iyo furiyaha baarkooda oo aan hoos u adeegsanayn meesha hadday ka qaqlayaan iyo haddii kale waa isku mid dadka waa dhinteen waana dhimanayaan inta joogtaana toogasha ku xukuman tahay wayna sii baabi'i doonaan haddaad dhulka sii joogto oo waxaa arkaysaa maalinba gurin baa la laayo meel lagu jabsaday maalin waa maqlis beriga ayaan dhowta lagu laayey amaaqan sabiix meelaha sabiix meeshaas dad baa lagu laayay laftigooda maalinba qayba meel baa lagu laayaa marka wax kala jecel cid ka hadlaysa iyo madaxweyne farmaajo 7 askari oo ciidamadiisa ka mid ah ciidamada qaranka oo maalin koor ugu qodbeynayay baa beriga lagu dilay wuxuu ka tacsiyey maraykanka 4 qof oo lagu dilay Las Vegas ka dhacay weerar ka dhacay wuxuu ka tacsiyey wuxuu lahaa Las Vegas weerar ka dhacay aad baan u xunahay gobolkaas Nevada beri baan vacation ku tagay magarad quwada ku soo qoray ciidankiisa la laayayna kama hadal magarad marka kii kiyaanka dantay waa tii xasan sheekh batu isku guday dagaalameen oo geed ku soo galaaday marka aniga ma garanayo farmaajo oo antidii ilaahawiye maantana maaragtay intaas dhibaato u geysto intaas maaragtay xaqiraad xaqiro aad baan nahay oo salaamay laba nin oo Ethiopian hadday meeshaas ku dhiman lahayd maalin Ethiopian madaxweyne ma aamusan madaxweyne farmaajo ma aamusan magarab waa qaylin lahaa dib baan nigaaru dhihi lahaa laakiin waxa baaba'ay waa soomaalina dee ma kala jecla baasaboorkiisu wataa kulleyna markii hawshan u dhammaato dhulkaas kaluu iska xaadirin doonaa ma garab marka wax weyn oo hadda la buunbuuniya ma ahan teeda kale beesha daarood niyow shaqadeeda haysataa waxba ha ku adkaynin beesha ayuu ka soo jeedo haawiyaha oo hadda xaqi kismaayo kaaga maqan yahay oo hawiyihii kalena ay ku kala cararayaan arrimahaas ka hadalniyo ma garad haddaad dee dad u doodaysa laakiin adoo gurigaaga u doodayn inaa guriga kale ka hadayso waa eedaro hawiyaha runta u sheeg hawrayahana karbaash wiil baa haysta sharmarkay u qoran tahay dadka ugu horeeyaa soo qabanaya aniga khiyaaray waa lidin soo qabanaya dhammaantiinaba ra'yigiina ayaad ka dhiibanaysiin wiilkan rafda ama wuu rafaday wuu diiday waxaan soo qabanaynaa gabadhaan soo qabanaynaa gabar baan soo qabanaynaa calaa kulli xaal akhyaarta qiimaha leh waxaan la yaabanahay maamulkii villa marqaan oo ilaa hadda aan tacsiyeynin oo hadda maaragtay weli iska aamusan yihiin iyo saraakiisha ciidanka qaranka ciidanka maaragtay qalabka sida oon weli maaragtay war laga haynin oo siday wax u dhaceen oo weli maaragtay sida dagaalku u dhacay sida maaragtay dhallinyarada loo xasuuqay aan ka hadlin iyo odayaashii dhaqankii beelihii ay ka soo jeedeen wiilashan iyo siyaasiyiintii ay ka soo jeedeen cid ilaa haddadan oo ka hadashay ma lahan oon ahayn dad yaryar oo maaragtay beejadkooda soo dhigtay sida anigoo kale iyo wiilal kale ayagana oo ka hadlay xalay ilaa iyo maanta ka hadlayey habeen hore dhe ilaa maanta ka hadlayey dad kale ma jiro waa nasiib daro weyn oo ku habsatay waaye dadkeena iyo dalkeena ku habsatay waaye waxaan rajaynaynaa insha allahu inay soo afjaranto wax arrintaan arrimahan oo kale dhibaatada u keenayo milyoon gabadhaan u qoran tahay maalin walba soo gasho soo qaba ku haysa camera soo qabso oo kuu jeeda adiga taageerayaasha nabar naxadiina ka mid tahay waan ku soo qabanaya laakiin soo qabso kamarada soo taabo waan ku soo qabanaya leyle baaldoor gabadha u qoran tahay adigana kamarada soo taabo sharmaarka waan ku soo qabtay
waan ku soo qabtay laakiin waa damisay ninkii la sharmarka beliis aan iscaajinin dhibaataan ugu samaynin gabadhan baan soo qabanaynaa gabadhan milyoon ugu qoran tahay baan soo qabanaynaa iyada taageerayaasha bele marqaan ayaan soo qabanaynaa asalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhow وهذا ما شاء الله أكو فرح سنة هنا يسوق وقتين. ما يمقشين عدكي. aad si fiican si fiican ما شاء الله. وك سلام يا كده ما ماشي كجرنا والسلام يا سومالي ملك ستيجوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاس مركان تنكس وقبحه. codkaan kor u qaad هاي وأقول هاي وحتى هاي معارض كدولة ده لكن عاوة ما دام حتى هورك السوق قالوا حقوق تمام بس ما شعر كقبصة. okay ka soco alright waxaan rabaa hortii walaalow adiga hal su'aalo inaan ku weydiiyo codkaa kor u qaad su-aalaha waa weydiin kartaa aniga waan ku weydiinaya laakiin aniga meesha jooga anigaa su-aalo ku weydiinaya marka anigaa dhamaysto kabacdi ad markaa salaan dadka salaantid oo dadkana u tacsiyeysid anaga tacsiyaan halkaan waxaan wadnaa ujeedaa noo tacsiyeysid dad baa naga dhintay dad baa naga xasuuqay kabacdi su-aalahaygan iga jawaabtid waan ku siinayaa waqtigaagana waan ku siinaya biidn illahi kariim inta dhimata ilaahay ha u naxariisto inta ilaahay ugu talagalaa dhimanaysa maalin iyo habeenna waa la dhintaa hadalkaaga waxaan ka dhidhibinaya inaad tiri ciidankii aa la laayay ciidanka dee marka horeba markii la qoraayay looma qorin in ay baasto cunaan iyo boliis waxaa loo qoray inay dagaalamaan dagaal hadduu dhacana dhimashana way imaaneen dhaawacna way imaaneen taasi kiskiiskuuma noqonayso ilaahay ha u naxariisto inta dhimatay inta nool oo dhaawacantana ilaahay caafimaad ha siiyo taas bartaasa oga baxayaa haye su-aalahaada i weydiiyaana kuwaygan ku xigsan okay ayib walaashay adigoo raaliga ah anagu qofkii koleyba isoo qoray oo dagaal isku soo diyaariyey dhimasho horta inuu dhinto ama imaa nasr ama imaa maaragtay laba le waaye guul ama geeri waaye laba dhimasho ama inaad guulaystid anaga ma diidinin dhimashana ilaahay baa wata ilaahay baa dad dila ilaahay baa dad maaragtay dhaafa ma diidinin laakiin caawe raggii yani oo weligooda hadli jiray oo ciidankaana dagaalgeliyey oo ciidankaana horboodayey maxaan u weysan loo waayey maxay usoo tacsiyen waayeen maxaa ciidankan gurmud looga fadin waayey inta dhaawac duur ku jirto maxaa loo aamusay awar dadkii fulaan qaran fulaan wadani ee u saarnay beejadkooda maxaa looga tacsiyen waayey dadkii loola qaybsan waayo maaragtay murugada hooyooyinkii wiilashaa ka dhinteen iyo aabayaashii iyo ilmihii laga dhintay yacni soo lama dhihi karo meeshaan mas-uuliyad la-aan baa jirta dadaa maaragtay xaqiraya oo dhiigga maaragtay dad soomaaliyeed oo ciidan qaran sheeganaya oo meesha joogaan 24 saac hadduu ugu dhow yahay oo wax ka badan baa la jooga hal qof oo ka hadlay arrintaan see wax u dhaceen iyo meeshay wax ka dhaceen iyo inta dad tirada dhimatay iyo u tacsiyeeyey oo yidhi waan ka xunnahay waan u tacsiyeynaynaa oo insha allahu dee adduunyadana waa kana dadkan qaran bay u dhinteen oo dalkooda difaacinayo maxaa loo waaya intaan okay walaalow dowladda facebook keliya kuma eko meelo badan ay ka tacsiyeysaa jirto ciidan in loo taxsiyeeyo loo baahan yahay hadda adii inaad ogaato muhiim ma ahanin hadday dhinteenayba jirtaba iyo haddii aad mucaaradnimo adiga awoodtada ku kordhinaysa ay tahayba iyo hadday sidaad u sheegayso u jiraanba kollay saa aaminsanahay dowladda iyada kaaga xoog ogdaalsan ciidankeeda iyadaa og hadday tahay daryeelkoodii hadday dhimashadooda dhaawacooda tahay walaa xataa iyaga iska daa dhimashada ay dhinteen reerkooda mas-uul laga yahay taasna wax exkiisa kuuma noqonayso ilaahay ha u naxariisto anaaba number 1 ka ah dadka dowladda taageersan haddaaba ku leh allah u naxariisto taasa kaa gaarta kow dheh waxaan rabaayo kale inaan ku idhaahdo adiga su-aal haddaan ku weydiiyo soomaali kolley gobol u kasoo jeeda anuma aqaano gobolka kasoo jeeda laakiin gobolka aad kasoo jeedid dowladda waa dhaliilsan tahay wax badanaa ku dhaliilsan tahay dowladdana mucaarad iyo muxaafidba inay yeelato waabatay u nooshahay u joogto waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adiga ahaan kolley gobol aad kasoo jeedaa gobolka aad kasoo jeedid
xildhibaanka adiga kuma tala ma taqaanaa magaciin ii sheegi kartaa caawa aniga horta xildhibaan ma taageersani xildhibaan ma tirina la ma dhegeyso لا رالي نقو وان لا يديسو واكو جوابي يا رالي نقو واكو جوابي يا فيلم كيننا waxa weeye mawduuceena kuma saabsan laakiin aniga xildhibaan aniga matala ma lahan xildhibaan aniga sharafteeda karaamadeeda ilaali ma lahan gobol baan ka soo jeedaa gobolka ka soo jeedana ninba magacii ku jooga waa la og yahay taasna waxa weeye waa arin aniga qusayso أنا لا ديسو أديك حلبان وحكادو يسا عروشيز وشغيسا كادو يسا أنا قضية دنبا كادو يعني قضايا دنبا كادو فيري دولة واكلا سريسا هالمر يمقل دولة واكلا سريسا أنا وحالي يابناهي أنا قهرت الصومالي وقت الدولة أهدنا ما نجوغن لكن وضد الدولة لا نجوغا سيدو كلا دنبيت الدولة كوا عقانا سيدا أني حتى أقول ولا هيان وضد كلا ربع صومالي ما هرت إنتاقلو لكن مركان سيدا الصومالي حتى يستعماش نفت الكودة كولا رقمو أدوغا حتى قبلا كسو جدا ماشو ربعا أهادو قبل كاس حلدوانا حتى هذا كيمت أنا وحالي يابنا إسلام والبقاري كنمو إيا مد بير كنمتو محي فرماجي غير رأفك قسو تاغان ورميسن حلدوانا ذا إيغا حقوذا كسو جيدو ومقعوذا كسعودو ميشاغان يرهدان هبل يهبل حتى الدولة وحبضان كهل الهبل مركو حلدوان كاظي إلين حتى قايري إيا فرماجيوا وإلهي با سرين لك وميشو أقول سريسا مقامك so they never know دولة waa kala sareysaa waxa la yaabana markii islaam kasta oo ari ka dhumo markii tar farmaajiga qeyr markii totra kii gur loo qaad farmaajiga qeyr waxa taas muujinaysa in dawladnimada wax ka aqoonina sida dawladdu u kala shaqeysan wax ka aqoonina hatta social media marka soo fariisanaysan rule iyo regulation qof yaqaan soo ma fariisatay in yar mooyaan so waxaan ku leeyahay adiga hadda hadlaya afka marka kala qaada madaxda dawladda ugu sareysa sheegaysa wax qabad la'aantood war madaxda dawladda ugu sareysa waa laga hooseeyaa waxay leeyihiin xildhibaano leeyihiin waxay leeyihiin councils leeyihiin city council waay asaas ugu dhaqmo weysin second adiga xildhibaanka hadda allada ma taageersana ama taageersano ama taageersan codkaadu ku yimid wad FA tahay laakiin you have to waa ina asaga ka bilowda mucaaradnimadu waa ina ku bilowda oo tiraahda anigu xildhibaanka xaafadeeda ka soo jeedo gobolkayga ka soo jeedo ima matalo wax laga qabanin daliilaha uu leeyahay ilaa wuxuu adiga represent kugu noqonayo waa waxyaabaha aad adigu uga baahan tahay meesha aad degan tahay so asagiya ku ah on behalf of you u yahay dawladda aniga waan garan lahay marka soomaalida ma aqaano aqoon la'aan ay ka tahay ma ogi islaam walba wax ka dhamaysaa markaan soo fariisano dawladda ugu sareeyo wax ka sheegay I don't know ما شاء الله طيب adiga dal waxaa joogta oo xildhibaanada gobolada laga soo doorto oo maaragtay dad wax qabanayo oo dad toosan oo yani dad wadaniina sheegayso meesha xildhibaan lagu sheego waa mid xumo qabiil magac qabiil uu keenay oo $4,000 qaabay dhigayso la dhigayso muxuu qabanayaa nin dadkan waxa naftooda maareen la yihiin dad wax ma qabanayaan dadkan horta hadda xanaaqdo runta hadii lagu sheegaa xanaaqan hadallo xumaya ka soo bixin dadka waxa ku sheegaa gabdho aad iyo aad u caaytaa soo gala beejkaada oo dadka caayaan caayadan waa ceeb ma fiicno qof dhinta iyo qof nool iyo qof wanaagsan ما بيتي أنا اللي عايمان دلوا معايا دل ما ولا شيء مليون أنا هذا ولا لا هذا لا دقيسو لا دقيسو ها وإذا دقيس أنا وتعنا لست طيب أنا وأكون جرّا مركي رد كوشة أنا هيكون جرّا إن بدن باي حناك سنيدة ورا إن بدن باي رادي ليش عوايا شيء واي قبضة وكوها يا دقيس أنا ناش كوها دقيسو هذا هذا قرب جوكتها ما قرنا ماشي جوكت لكن المها هذا الشيء waxaa ugu dhigaysaa cadaadka waxaa ugu dhigaysaa soomaalina u baahan yihiin dawladda u baahan yihiin soo ma ogid waxaan inay yihiin social media recording ay galayaan dirri cunugaaga waxaa laga yaabaa dawladda maanta la yigleelaayo inuu ka noqdo madax hadda birin aabihiisna waa mucaarad soo waxaa kugula talin lahaa aas soomaali ina ilaahay uga baqdid kelmad kasta oo ku mucaaradaysa adoo qabiil iyo waxaan loo baahnayn xambaarsana hadhow aday dhaawac kugu noqona kugu soo noqonay so ilaahay uga baqa dadka dawladda mucaaradaayo dadka waa dad masaakiin ah tan labaad oo kuu sheegayo ugu muhiimsan oo rabay inaan ka hadlo waxay tahay dadka xasid
dadkii oo dhan hadda soo baxeen anigu been kuma sheegayo xasan sheekh shariif xasan sheekh maxamuud waa adeerkay waxba uma qabo sheekh shariif waa sidoo kale waa adeerkay waxba uma qabo laakiin waxaa muhiim ah barta la taagan yahay in laga wado way dadaaleen waxbay soo qabteen waxba maysan halaynin nin walba inta ilaahay ugu talagalo ka qabtay kuwa hadda haayane boqolkiiba boqol waxay uga fiican yihiin madaxda dhan soomaaliya soo martay laba qof oo isku kalsoon oo heshiis ah oo hal meel wax u wada inay yihiin that's why loo ogolaan la'yahay oo cugdada iyo xasidnimada iyo dadkii oo dhan xasidnimada ee xataa iska daya dadkii ehelka u ahaa soo xasad lama waayahay nabi yuusuf calayhi salaam baa walaalihiis حسداي سو حسد لما وياها لك سومالي هوري وسعتي أنا قربة جوجنا دولة ما أنا أعرف أحب أنا عدد قاعة هستو دتي لهي نوجا بقى عيال كنا ماشان الجوجان أنا قربة كوسا قرني مرة من الغير نقال بقران دتكينا الملاك اللي جوجا قبيل كل حاي إلهي كبقى قف وليبا أو إلهي درتيس إلهي أوجا بقرة دو بقول السنة قفك كلام صومال ما قري أدو أنا مش أنا ما نحس قفك المصومال اللغة قبطه لغة صومالي مقبل صهوري وسعتي أقوسي إلهي سبحانه وتعالى كرمنا لكن هذا الدولة وين تكتوين في الدي إذ لو جوجنا أنا بجرته فرماجي غيرنا ويصوم قرايات ولي ما قاعد برها لا يذوق قرايا أنا كل شيء قاعد أنا شيء قاعد برها لا يذوق وحنا بلنا كدور لا رياش أردن كل وقت حبس الله حريم ناس كل شيء قاعد يعني صاحب البركة وما سنتهاي ما شاء الله دين بدن با سوق ومانويل بسوق قالوا ايه دقيقه واي شيء انا بيتكي وبيت ديمقراطي قفنا لو ما عبريو قف والبن رئيس وكديبنيا طالما يعني قفكم محترم يا adigoo kala oo raygiis ka hadlayo raygiis wanaagsan runtii horta wala shay dawladda aad sheegayso horta dawlad kama jirto dalka xaqiiqada hadaad isku sheegno musuqmaasuq baa ka jira meel lagu rafaaday baa ku jirta meesha ka jirta maanta haddaan kula hadlooya waan kusoo qabanaya leyl waan kusoo qabanaya maanta kula hadlooya oday dhaqameed dawladda يعني wax ayadu diidaysa sameynayay baa maanta la dilay odayaashii u ololeynayay maqaamka muqdisho maanta galabta meesha lagu dilay dawladda waxay noqotay maafiya oo shabaab adeegsanayso oo boqolkiiba boqol ummadii xamar joogtay wax qof hadli karta ma lahan qof yani dadkii shabaab baa looga hanjabaadaya iyagii ay la jiraan musuqmaasuqna waxaa weeye lama sheego xatooyin lama sheego malaayiin bay luunsadeen ilaa hadda dawladdaa sheegayso adiga aad noo faalinaysana ma aqaana inay dadka kugu jiraan adiga ama adiga dhegayso macalish aan ku dhegaysanayaa maanta wax ay qabteen haba yaraato la sheegi karo ma jiraan wallahi ma jiraan yani nahaaya ma jiraan aan ahayn inay ummadii isku diraan dadkii shaki ka dhex abuuraan dadkii maaragtay cugdad qabiil ay ku beeraan oo maxayati qabiil ay dad ku shaqgeliyaan qabiil ay maaragtay wax walba ay ku sameeyaan ay dhibaato kasta maaragtay ay geystaan oo maamulada isku diraan maamulana maaragtay qabiil looga haro war maamulka Puntland maanta boqol dawladood baa timid oo mashruucay maalgashi wataan baa yimid oo Yurub iyo Aasiya America beedkiga soo dhigaya waa arki doontaan waana la og yahay dawladana way la og tahay iyadoo dawladna la soo marin dawladana la tashinin baa la heshiiyay mashaariic maalgashi la keensaday wax walba la keenay lagama hadlayo maanta reer Puntland way ka tabardareen reer galmudug maalin baa lagu wareegay majaartanka hal maalin baa lagu qabsanaya maxaa ciidan maaragtay loo qabsan waayo oo ciidanka Itoobiyaanka loo soo hogaamiyay Dhuusmareeba iyo Beledweyne iyo Baydhabo maxaa loo geen waayo maxaa loo qaban waayo warbeen yaa la isku sheegin meeshii la yiraahdo maxay ahayd Jubbaland qabiil baa jooga daarood baa jooga Axmedooba iyo Farmaajo dhoolatuskan hawadan xirnay fulaani kan iyo filin la isku sheegay waa laba qof oo walaalo ah habeenii maalin bay isla hadlaan habeen maalin bay isla sheekaystaan way heshiis bay ku wada jiraan Marixaan iyo waxa iska leh maamulka meeshii ay ogaadeen baa u kala qaybsaday labadoodaba isku baawar waaye Marixaan ay ogaadeen ba lama taabto baynama maamuladii kale la curyaamiyay la dhibaatay ciidan ajnabi Itoobiyaan loo adeegsaday dhibaato kaas lagu sameeyay wadanaga waxaas nooma sheegayo waan ka weynaynay waa ka caqliyeysanay caqli Ilaahay baan say maanta dadkaan ahayn daaroodna maanta boqolkiiba 99 jir iyo weyn waxay aaminsiin inay dawladda ay tahay dawlad qabiil cunsuriyad
أو محياتي أي دوني سو إني قبيلة قارة أيضا أي عريامسو أي قمادو أي وسو إليك سو إذا ما جنبيا الشباب إثيوبيان بلاي إريتري وسو إليكستو انت سيان أنا كآمن سناي هاي وواحد ما هادلي كرا مركا ما هادلي كرا ريالتي جلو هذا الهوان وهذا الكاغوت بايواد كلام سوق ولا هاي walaalo horta qabiil Soomaali waxa intan ka reebo waa qabiil al-shabaabna waaba mabda'eeba leeyihiin oo dadkaas warkooda waa cad yahay laakiin kuwa adiga number 1 ka tahay oo kale iyo kuwa social media taagan iyo kuwa mucaaradka ah oo haddana biri Soomaalinimada kula wataan kuwaas aan garan lahaa wixii lagu sameyn lahaa war adar dawladda waa socotay cid celin kartaana ma jirta aabahay hadduu dawladda ka soo horjeesto uu kala dambeyntii maamulka nici waa xabsiga la dhigayo adeer wax ma ku sheegaa xabsiga la dhigayo hadduu aabahay aniga idalay rule and regulation ogolaan waaye ee wadankan inuu hore u dhaqaaqo aqoonsan waayo waxa la leeyahay dawladda badada kugu jirta dictator waaye dawlad dimuqraadi ma jirto dhagayso tan labaad waxaan ku sheegayaa dawladda waxaan la yaabanahay maamuladan maxay ahayd midba meel u guurayo gabigoodba dawladda soo inay hoos wada imaadaan maahan iyadaa head u ah iyadaa wixii dhan loogugu dhiibaya waa inay iyaga ka dambeeyaan carruurta waa aragtay markii kibirka la baro oon wax laga celinin oo la yidhaahdo waxaan adigaa iskale gurigan wix yeelo dhacdaa iskale wuu kibraa biri markuu arko ma aragtay wax yaroo kala dambeyn ama amar la siinayo cirkuu galaa adduunyada inay kusoo duntay maamulada aa arkaysidna waa sidii oo kale bakti iyo quran iyo xaaraan iyo waxay kusoo naaxeen gebigood xoolo islaameed ay kusoo naaxeen maanta markuu bilowday sharciga iyo kala dambayntani mid kastaba meeluu xirtay hawadaa laga xirayaa oo baddaa laga xirayaa oo waxlaa la yidhaahdaa ma jirto farmaajo khayr kor allaha ka dhigo ilaahay cadowgooda ha qabto ma sixraysaan waa laba qof oo ilaahay noo soo diray alla subxaana wa tacaalaana imrigooda ha dheereeyo aabihii aniga indhala hadduu dawladda ka hor yimaado adeer xabsigaa la dhigaya idinka dhammaantiina recordingkiina waa wada helaa maalinta ay baashi israacdo waa laydin soo wada qabaya adiga nabad sugada security ma u shaqaysaa oo maamulka balla marqaan ma u shaqaysaa aniga absolutely Soomaaliya ma tagin oo maba arkinba mana ku soo caqliyeysan laakiin everything intaan ka ogahay we need dawladnimo meesha aan joogo macaanteeda arki dawladnimadeeda sida adduunka u kala dambeeyo we need like that waxaan u baahanahay sidaas oo kaleete idinka oo kalena ilaahay haydi soo hadeeyo idima inkaarayno ilaahay haydi soo hadeeyo آمين إذن إلهي سواء نيو إذن كنا وما صدق مليون آدم السلام الأخيار تقييمها لا كبار ده سوق أبو وليلة بالدور وقرنيدي ما قاني والله أخيار تقييمها لا ومغليسان ددكي ونبر نحدين آمن سنة هذا الكود ومغليسان هذا الكود ومغليسين ورميشان ديمقراطية جرتا فدرال صومالي هو فدرال ديمقراطي ويعني قفل أنا حمر هدان تجنا سنة وهذا والله هنا وجو جنين هدان حمر تجنا سدان له وهذا ميشان جو سنة وهذا أنا هدان ديكتاتور هدان يلينو ده الدكتاتور هدي أبياشين وياشين يلي لهاين وحالي يعني لو قولان لها دكتاتور كي وقفعنا وقوناكسنا وقونصبسنا وقودنسنا وقجيسنا ومحمد سياد بر الله ونعرسته السجا ماركتي ودنيجاها وهالتاك ودلكيس كمده إنه ماركتي لوريجو أجنبي أو قولين وقيمة لها ومحياتي دلكيس دفاع جري وعيدا سمايستي ووحول بسمايستي ووح كاستماركتي عالم كنا كهر مري أفريقيا دان دتكو كهري أفريقيا دتكو في عناو كمل السلام عليكم ألو ما مقلسان وكم مغلي سودو وك سلامين شالي ما اوكي ساكمي كو ahayd maraan ku arkay adoo ilmaha wado iskool u socdaan saaki ku ahayd maxalay bay ku ahayd ma sheegi karo waxa la kala duwan yahay الليل وقصو قملا ولا شيء ما هي سنين كاميرا وقصو قملا ساكي ahayd anagu marka maalin hadda maanta waxa saacad waxay noo maraysaa
waxay noo maraysaa 10 iyo bar habeen way noo maraysaa saacad yani أنا waxay tahay أنا waxay tahay ساعة واحدة ونص ظهر كلا meelahaas بعد الظهر يعني America way meesha joogtaa Soomaaliya كندا ها waxaan ku iri haa waxaan rabay maanta ma nafsi mawduuci baa mise waa bedeshay نفس موضوعي واي وأوجينا وحن وضنا ودي بروديق بان قبنا أنا إلهي ماركتي عيدنكي قرنكي صوماليات وشلي درس الصبح للجماعي أيام ماركتي وبروديقينا وقف كهذا الشيء قف تعسيسي قف ماركتي قيمة شيء قف قرق هذا هذا يعني يعني وين شيء لهي بانجا أسحل قاني عندك حسوسين هنا إن دد مجا قرن صوماليات وطو oo yani shalay lagu weyneynayay oo ilaalaha daba socdeen markay iyagu dagaal ku socdeen maantana markii la gumaaday laga aamusay yani inay jiraan min kalaba yani ma wax ka soo kama soo qaad laga dhigay waxa ugu darnaa dad halkan weli daawanayo hadda oo ciidamada u saaranaa oo yani dhiirigelinayay oo lahaa dib way guuleysteen fulaan walaan waay maantana markii la gumaaday xataa tacsiil lama soo saaran lama soo qorin ma dhihin waxaan u tacsiyeynaynaa wiilasheena oo qaran Soomaaliyeed ilaahay u naxariisto inta dhimatayna maaragtay ilaahay shuhadu waa ilaahay u naxariisto inta dhaawac ilaahay caafiyo waa laga weysay marka saad u arkaysaa iyo nabadoon maanta ka soo horjeeday maamulka Villa Marqaan ka soo horjeeday oo u ololeynayay dhismaha maamul gobol Banaadir ama maqaamka Muqdisho maanta lagu dilay magaalada Xamar lagu dilay iyo wiilashaan ayagan la gumaaday oo si xun loo gumaaday ayaan ka hadlaynaa sidaad warkaysa marka in mas'uuliyiinta ugu sareeyay ay yani aamusan yihiin oo tacsiyeynaynin oo say wax u dhaceen u sheegaynin oo siyaasiyiintii ay ka soo jeedeen wiilashaan la gumaadayna hadlaynin caalamka dhan wada silent la wada yahay la wada hadlaynin arrintaas ay warkaysa adiga aniga horta waxaan u arkaa ciidamada inay ka gardaran yihiin baan u arkaa oo ay gardara meesha u aadeen ani taasaa u arkaa dawlad meesha kama jirto ciidanku markuu dagaal galayo waa inuu haysto xulufo waa inuu haysto dad ka horeeya waa inuu haysto dad ka dambeeya waa inuu leeyahay ilaalo ka horeyso oo dharcada oo dhulka u soo sahamiso oo soo ogaata intee wax soo marayaan oo telefoonahooda sira wato oo wax iska oo la iska wada hormariyo ciidan waa wax isku xiran maaha afar ciyaal oo aan tababar fiican la siinin oo inta Turkiga hore u jeesiyay gadaal u socoyo digtoono la baray oo dab lagu shubayo ma ahan kuwa Turkiga laga soo tababaray kuwa guriyaha laga soo sideeda dhan maya aniga sideeda dhan u sheego kuwa xataa Turkiga ka imaada tababar ma lahan waxa la baa digtoono dib u jeesto salaan qaado qoriga sida loo rido intaas ay yaqaanaan waxba lama barin marka taas waxay ku tusaysaa in ciidanka in dhalinyarada dab lagu shubayo oo la daadinayo aniga waxaan qabaa hooyo kasta oo dhashay wiil inay wiilkeeda ceshato meesha dawlad ma ka jirto meesha nidaam ma ka jiro markay dawladdu isku xiran tahay oo dawlad weyn tahay oo ciidankii horta ciidiya u tacsiyeynaya inuu horta lagu ogyahay baa ka horeysa show baa loogu dhigay waxaan la dagaalanaynaa al-shabaab iyagaana al-shabaab ah dawladana intii ka dilay maxay tahay marka yay la dagaalamayaan aniga dadkay rabaa inay la dagaalamaan baa rabaa inaan ogaado meesha al-shabaab wax la yiraahdo ma jirto dawladda laftigeeda al-shabaab iyaga laba shaatin oo kala wata midna tuutu wuxuu ku wataa dirays dawladeed midna wuxuu ku wataa dirays wadaadnimo wax la yiraahdo ma jiro meesha aan ka dhaxgalay walaashay ka dhaxgalay adaa ku wata ciidanka soo weeraray xerada militariga oo intaas wadada dilay waxay wateen daraaska waxa la leeyahay ciidankii ayaga la dagaaleen bay wataan ali dagaal ciidankii daraaska watay oo ciidankii oo maxay qaranka bay soo gashteen baa ilaa wataan waxaan hadda ku sheegay Soomaalihan ciidanka marka dharka saas loo soo siiyo nuskooda loo geeyaa al-shabaab markii la keeno macaawinad nuskooda la siiyaa markii la soo qaado nuskooda la siiyaa ay ka wada shaqaysan hooyada ha ceshato war orod badda aad oo ka soo kaluumayso war orod beerful war orod gaari samayso war orod iibso
tugtug war ay shay sameey bas ha qaadanin qori aanad u lahayn karti oo dadku difaacaya aysan jirin meesha dawlad ma jirto abo waa show baa laynoo wada dhigaya aan ogna bad adiga filan aad fiirsato habeenkasta fiirsanaysid ka waran ma wuxuu leeyahay wax ma la wax qiimo ah waa runta maalintii filinkan la bilaabayay oo ciidanka xamar laga soo waday maalintaas baa anaga aan u sheegnay war khatar baad u socotaan ciidan marka la dagaalgelinayo waa yani waa inay ahaadaan ciidamo gurmad ahaan meel u joogay ciidamo ixtiyaad baa la yidhaahdaa ama yani oo ciidamo yani oo berri markay ciidamadan soo jabaan ama dhibaato sameeyaan u gurmanayaan kuwii bedelayay ciidanku waxay u kala waqsamaan difaac iyo weerar bay leeyihiin waa sida banoonigoo kale qolo waa inay xabadda tuurto ay bedelaan markii kuwaas intay kuwan soo galayaan waa inay kuwan xabadda sii wadaan si ay kuwaas ka banayaan waa inay kuwan waa la istaba socdaa waa la iswareejiyaa ciidan wax ka meesha ciidan ma jiro tababar ma la qaadanin ciidamadan ma tababarna waa wiilal yaryar oo lagu dhigayo show baa lagu dhigaya waxa leeyahay al-shabaab baan la dagaalamayna yaa la tusayaa caalamka la tusayaa laakiin al-shabaab waaye dawladda lagu sheegay meesha dawlad bay ka tahay waa al-shabaab cidaana waa al-shabaab qofka loo sheegay farmaajo dawladda farmaajo hal sana u dhaaftay ani waxaan leeyahay qalalaasaha hadda muqdisho hana looga daayo nimankan u xirxiran hubka ee meel kasta xiranay iyo waxaan tuuraynaa diyaarad soo degayso dambe ma leh waxaan leeyahay shalayba markii waxaas oo dhan la sameeyay oo dadka la qarxinay oo ciidamada la dilay oo xamar dhuunta laga qabanay oo dhulka dhan la qabsanay waa fiirsanayseen maanta markii idinka la idinku imaaday ma ciidamadeena wiilasheena haddana hub oo aad ka dhiganaysiin qori oo isku hormarinaysiin kaalay anaka nala soo dagaalamo halkan ka soo ordo shabeelle ka imaado inta ka imaada waxaas waa qalad nimankan siyaasiyiinta isma dhaamaan kuwa xukunka haysta kuwii soo maray kuwa qaban doona war waxa dhan ninka siyaasi taageerayna waa nin caqli xun oona ogeyn wadankan meesha ku socdo aniga qabiil siyaasi kuma taageerayo in adeerkay hadduu yahay waa kadaab siyaasi waxa waay awsakh lucbad oo la dheelo waa siyaasad ما فهمتي وليجا أدي عيار العبدان أو سياسة بسات أنا كنا مو بكتيرنا ما بنقانا بقى وإسك خير هاي ماشى إسك سعت هذين كي لو سعدا أنت اللي جيمد أنت اللي هذا ما شرتو شيخ شريفو حسن شيخو كي كوريو كان كدم بيو كان هذا جوجو كل جود ومصلحة استياشة مصلحة هذا مركي وين بل هذا وحلو سعدا إلى بنكو كداري أحمد مذوبي هو أحمد مذوبي واي أحمد مذوبي كل يوم وانا قانا أنا كأحمد مذوبي وحية محل وقول تاجر يا أحمد مذوبي كان أفرمات ولا دجالي أحمد ما حد كل دجالو يسا وأبنها أهرين قبيل بكل دجالي يا ضد كينغ لوكاس أوربا إني قبصدان كسمايو هذا كسمايو كقبصتي مصلحة كل ما دجالي يسومالي من سوا بنتي صح نعم مصلحة سومالي كل ما تقالي أحمد مذوبي كل ما تقالي ها مصلحتي سجار كوربا كنا مصلحتي سوربا ما فهمتي كوان هذا هو سود محل سويال كسو أروسده يوم مجال وذا دكتورنا وذا جليوت أو ضد كيو أنا وذا عبسنا يعني وحنا ليه شعب كهنجي جلينينا أنتوا كوف إن دبعت أو فلان فرق الو ولا شيء واكو اي معلش دتي كلام فرصه سينينا برنامجنا waa gabagabo gabadha dhaysana soo qabo oo Leila ay u qoran tahay soo qabso adigan ku soo gabagabeynayna barnaamijku waa gabagabo khiyaarta qiimaha leh aad baan ugu xunnahay wixii dhacay dhibaatada dhacday waan ka xunnahay in sha Allah waxaan rajaynaynaa in sha Allah in maaragtay ay mar labaad soo noqonin arintan oo kale dhibaatadan oo kale inaysan soo noqonin man deeq uu ka go'ay waa u jeeda uu ka go'ay dadda wax ku darsanaysa wax ku dhaman yihiin waan ku soo celinayaa wali waa haysta kaamiradan ku soo celinayaa haday wax ku dhaman yihiin waan ku soo celinayaa كاغو يا معلش
xamar bay waxaa lagu leeyahay digtoonow la geliyo oo ciidamo inta laga soo geliyo oo inta laga soo geliyo ilaahan kugu dhaaray ma muqdisho hadda waxay xamili kartaa inaa korkeeda la isku dagaalo niman siyaasiyiin ay isku dagaalaan ma xamili karto in ku filan xamar way aragtay way cuna qabataysan yihiin dadku way baahan yihiin gaajo iyo rafaad qofka maanta heli kara bariiskiisa xataa wuu yar yahay laa siyaasi aan ka warqabin walaa ka joogaan ka warqabin cashuurtii laga qaadayaan waxba loogu samaynin marka nin siyaasiya ma rabno ma ilaahay baan ka furanaya haddaan nin siyaasiya aan daafaco ilaahay abuurtay baan ka furanaya ilaahay baan ku dharay maandeeq aan kaa dhexgalay adaa ku watee wax ma noo sheegi kartaa adigoona xaqiraynin adigoon dulminaynin maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre dowladdan hadda jirta wax ay dadkan u qabatay magaalada muqdisho ama amsiyajaal hooyada dhalaanka ay u sameeyeen ama iskuulaad yaryar ama maaragtay meele manfac leh ama ceelal dadka ay u qodeen ama waxyaaba maaragtay qaxooti dib u celin ay u sameeyeen ay dhulkooda ku celiyeen dadkan waxay u qabteen wax yar ma noo sheegi noogu taaban kartaa yani adigoo dulminaynin soo fikir qabtay ma jiro farmaajo keligiis kuma eedaynayo wax u qabtay aan bajirin kuwii ka horeeyaan u qaban madaxweynihii ka horeeyay xasan sheekh buu ahaye muxuu maqaamka gobolka banaadir u suubin waaye marka hadda farmaajo lagula dagaalayo adigii waddanka u dhalato muwaadinka ka ahayd oo caasimada ku dhalato iska lahaydba ma samayne nin ka imaaday baadiye awowgiis asalkiisana aysan xamar imaanin muxuu u samaynaa ninkii ku dhashay waxba uma samaynin wax u sameeyey male bilad baa maanta la siiyey maxaa lagu siiyey nimankii ragga waa siman yihiin gabarta markay 11 sano jirto 18 jirtay guursan kartaa nimankiina agu way is aroosi karaan barnaamijkaas uu kusoo daray bas baa lagu siiyey ma lagu siin halo wuu kaa go-ay mar labaad aawa gabadhan leyla ay u qoran tahay leyla walaashay soo qabso leyla baaldor gabadhay u qoran tahay bliis waxaa samaynaysaa intaa ka noqotid intaad ka baxdid soo qabso intaa barnaamij ka baxdid soo qabso asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ودمانتين ياس عليكم السلام عليكم السلام sharmaarka cabdulla waa ku salaamaya may maqlaysaa سفيعا وكو مغلايا بارك الله فيك waxaan ka hadlaynaa taasiida maaragtay loo taasiyeynayo eeladii iyo qaraabadii ay ka baxeen shuhudadii lagu qaaday lagu xasuuqay shabeellada hoose iyo oday dhaqameed maanta lagu dilay magaalada muqdisho oo ahaa odayaashii u ololeeya in loo sameeyo muqdisho maamul ama maqaam iyo waxaan ka hadlaynaa wiilashii ciidanka qaranka tirsan la gumaaday oo ilaa hadda cid ka taasiyeysay cid dadka wax u sheegtay sa wax u dhaceen oo la weysan yahay ciidamadii yani saraakiishii mas-uuliyiintii dowladda ilaa hadda qof ka hadleen jirin horta ciidamada meesha lagu tacsiyeeda sabar iyo imaan Allah naga siiyo dhamaanteen ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan sabar iyo imaan Allah ka siiyo meesha ka baxnay rag loo bedelo Allah u keeno marka dhamaad horta runaadii nimankan shabaab waa inay soo weeraray dhahaya laakiin shabaab inaanu soo weerarin ay dad ayagu isku dhacsiin amba beelasha oo meelaha dego ay kamid yihiin laga yaabaa laakiin al-shabaab sidiisa baraamo wajiro wadanka al-shabaab ma jiro waa dad shaati soo gashtay oo al-shabaab magac ku raadsahayo صح marka al-shabaab ma wajiro waxa al-shabaab la yiraahdo ma jirto meesha muqdisho waxa qasayeen waa dad siyaasiyiin amba farmaajo ha ahaado amba xasan qeyr ha ahaado dhamaan waa nimanka mas'uuliyadda dhaxdooda ayuka isku kacsan marka dad masaakiinta ay dilayaan xilliyan waa dimbi hore inay duugaan ay rabaan si dimbiga hore ku duugaan asi dad kale u dhameeyayaan يعني حسابات oo iyaga u dhaxeeyo oo dagaal dhaxdooda ayaa dadkii loo gumaaday leedahay shacabkiisa warkii hore intii iska daayeen war cusub ay u abuurayaan hadana dagaalo iyo dhibaato kale oo cusub ay keenayaan sidana loo dabakelin warkii hore okay maxaa loo aamusan yahay ciidamada shalay lagu xasuuqay meeshaas maxaa looga aamusay gurmad looga fadin waayay as leedahay oo dadkii dhaawaca duurka ku jiray oo diyaaradaha helicopter looga diro waayay oo kii dhaawaca ordi loo soo qaado sida ciidamada Afrikaanka la yeelo markay wax gaaraan oo gaal muslim ordo madaxdii maaragtay ku tartamayaan ay yani u taasiyaan inay ka xun yihiin Soomaalida yani wiilashii Soomaalida ahaa
maxaa yacni dhiigooda loo dafaray dhiigooda loo inkirayaa oo dhibaatadaa ku dhacday see wax u jiraan waa taas waa su-aasha waa beesha abgaale u taalaa waa lagula xisaabtamayaa insha allah waa dhammaan waxaas maqaamka muqdisho oo haloo suubila dhaha horta taas aniga waa kasoo horjeedaa sababtu hal magaalo maqaam inay yeelato horta xaq ma ahan sababtu waa ma wada firi karta sababtu haddii lagu soo daraynin marko iyo afgooy haddii lagu soo daraynin نعم iyo jowhar haddana lagu soo daraynay ilaa lagu soo daraynay meeshan kale oo ceeldheere min dhahayn I think so ma kala garanaya dhulkan soomaaliya oo aad u balaaran yahay laakiinse haddiina meeshaan lagu soo kala daraynin marka halkaas meel ma u noqon karto gobolbo يعني هدي لو سو درينين لبدا gobol shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe hadii lagu soo daraynin ma noqon karto maqaam ma yeelan karto leeda Soomaan maqaam ma yeelan karto maqaam ma yeelan karto sababtu waa inay sabot gareehaya qof inay sayaan waa population lagu xisaabtama fiican moogtaa sax dadka deena population dhameen marka meelaha population dhameen oo magaalo in dadku oo la dhaho maqaam laga dhigaa qalad waa taas صح بارك الله فيك هذا وما سنتهي خير بدل باريس مدير لكن waa wadanimada Soomaaliyeed aad baan u jecelahay dhalinyarada dhamaantood waxa fiican inay dawladooda dhistaan siyaasiga inshallah 4 sano u yimid 4 sano waa u dhamaan oo ka tagaa meesha aanu ka kooreyna meesha markay dhibaatada aanu ka haysataa waa anu ina ka tashana ma ahane ina siyaasi sudno horta waa qalad waayo نعم in siyaasi siyaasi waxba taraa حسن شيخ هذا وحاوي وشبيلوينك أسرع عن قريي معمول كمان لسمينه وقول بنادر أسرع ماركتي سبب وها أسرع ضياع صح لبده ماركتي لبده شبيلو أسرع ماركتي كساري أيضا صار مركب ولا دفعنا وسلامة ولا الكياد بقول سلامة مع سنتها السلام عليكم إن شاء الله خير طبعا إن شاء الله كبدا أنا داعي ليلة بالدورة بليس سوق بسوق كاميرا ذا وقت دنبال مرو يا أنا كنا واسحنا هنا بري وحاوي وشغين هنا مركا وقتي لو مجرو أم جماعة أما وقتي إجازة لو مجرو وانكبح هنا إن شاء الله وحي كران كان مسج كي أما فرين توجد بيني صاحبك عبد الرزاق وأوجي هذا وأنكو سلامة يا عبد الرزاق عيسى هذا أنكو سلامة يا وأكوجي هذا حق فريسة عبد الرزاق عيسى عاد بنكو سلامة يا مدحوينه فرماجو ومدحوينها مدحوينه ودا عدسن wadalkeenu ma baahana dagaal kale soo qabo anaga dagaal ma doonayno saaxiib dagaal ma rabno war dadkeen uma baahana dagaal dambe waa runtaa saaxiibkay dagaal dambe ma rabno annaga mana doonayno walaashay leyla waa jeclaa inaan kusoo qabto mar badan baa dhacday soo qabo laakiin kamarada ma haystid waa ka xumahay calaa kulli xaal وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نظيفة علي وكو سلامة آد بنكو سلامة نظيفة قرن آد بنكو سلامة يا وكا قادة ولا شيء إنا لله وإنا إليه راجعون وإذن تأسييني دمانتي نبا إذن كي شلي ماشي الواحد سوقي أنت دمتين الله ونهار السبان لنا هاي جندي فردوسين لك ورابيو وشهداء أنت داوعا وحان لنا إلهي عافيو انت قعنت عدو كجرتنا waxaan leenahay ilaahay ma aragtay ha ka soo bixiyaan leenahay ilaahay idinkiisa sheekhan waa ka qaaday walaashay nadiif waa ka qaaday aad baan ku salaamay adigana adiyo dhamaan nabad muuqabe kulligiina waan salaameynaa ala kulli xaal barnaamijkeena oo mutawaadic iska ahaa oo iska yaraa برنامج يعني أو سكيرة يريس أها هل كان يكون سوق بجوينينا
إن شاء الله مسج كينا فرينت أنا كل بدأت بدن ويجاريسا وسلام فلينو بإذن الله الكريم بلد كينا إن شاء الله وحرجينا إلهي نقول دقو بلد الأمين ومدة أنا إلهي ماركتي قلوب توضع سوسو دويو اللهم ألف قلوبهم إن شاء الله اللهم ألف قلوبهم وحان كلو لين هاي اللهم اجعل بلادنا بلد الأمين اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم احفظ أمتنا اللهم ألف قلوبهم اللهم وحدهم اللهم أصلح حالهم أيان لنا يمروا بالله وبرنا إلهي حالكم ماركتي أصلاحيو إلهي سكسور دويو إلهي دتي قبيلك ماركتي قلبي وجرو قلبي وضع نظيف كدقو ويعني صومال نمد إلهي جعليسيو dad badan waxaa jira oo yani anaga qabiil nagu sheego laakiin ayaga qabiil jaab ku wataan warqad qabiil ku qoran yahay reer hebel jufa fulaan iyo reer hebel reer fulaan uu qoran yahay dadka kale inay leeyihiin ay ka baq qabiil iska dhaaf anaga qabiil ma sheegayno anaga qadiyad weyn baan ka hadlaynaa masiir ummad baan ka hadalnaa wixii tabarteena ah fursad yar oo anaga aan u helayno inaan anaga maaragtay raygeena ka dhiibno لأن السوشيال ميديا وحونا سي حريات يعني حرية افتراضية وحال هذا أما يعني حريات عن حدود لهين وعن كل دي بكرون ريجينا هذيك كوا مليون ولي هذيك ولي يعني عيل بحذا وكوجي هذا ولي عيل هذيك قبتها وكوجي هذا mar labaad inaan ku soo qabto maarta oo waxmaa ku dhiman ala kulli xaal waqti anaga taasiyaan ku jira inaan qosolnimo rabno ilaahay insha Allah hooyooyin badan baa caaw maaragtay murugaysan caruur badan baa caaw murugaysan oo aabahooda meel u galay maaragtay waa ogtihiin anagoo dhan caruur baan leenahay ciyaal baan aan wada leenahay walaalaan leenahay ehel baan leenahay kasoo qaada marka anagoo kale nafteena kasoo qaada yani naftaada adiga kasoo qaad wallahi maanta yani muruge maantana waa murgey intaan dad meesha lagu gumaaday dadaa jira oo yani dagaal jecel ka ahayn wadan jecel ka ahayn laakiin usoo galay inay maaragtay u helaan beel yariis ah yani u helaan maxay ahayd $200 oo ilmahooda caanahooda iyo iskuulkooda inay helaan dagaal usoo galay oo ciidamadu isku qoray maantana ilaahay qadaray inay dhintaan asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محي الدين علي شراء وانكو سلام يا وعليكم السلام محمد أحمد أدين وانكو سلام يا وهذا انتي والالكي dhalinyaro ka tirsanaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo xerooyinkooda loo galay subaxii isniintii maanta ilaaday ahayd shalay isniintii meesha lagu xasuuqay oo idaacadaha laga sheegin warbaahinta laga sheegin meel laga sheegay jirin ayaan ka hadlaynaa ilaah u naxariisto jannada firdawsa ilaah ka waraabiyo kullayba yani dad niyadooda iska fiicneyd ay ahaayeen qaar waxay u socdeen wadannimo ku jirtay wadannimo lagu abuuray waxaa la yidhi qarankiina difaacaysiin argagixisaa la dagaalamaysiin qaarna waxay u aadeen yani nolol maalmeedkii carruurta ilmahooda biilkooday u aadeen ilmihii masaariiftooda waa ogtiin Soomaaliya shaqo la'aan baa ka jirta dhibaato badan baa ka jirta marka insha allahu kule waxaan leenahay ummadeena nabad ha dhex dhigo ummadeena isku soo dhaweeyo ummadeena maaragtay maanta waxaa isdilayo shabaabka lagu sheegayo ciidamada dawladda lagu sheegayo waa dad isla wada dhashay mid ciidan qaranka ku jiriya laba wiil oo isla dhalatay midna shabaab ku jiriya labadii baa isdilay waa nasiib darrada adduunka ugu weyn waay war gaalada
isma dilaan macadalah inagoo muslimiin ah inagoo shahaadanayno laa ilaha illa moxamed rasuulullah oo isla dhalanay oo isku diin nahay oo isku midib nahay oo isku luuqad nahay isku madhab xataa diinta maaragtay isku madhab aan nahay ayaa isdiloynaa caqli xumada ummaddan wacyigelin bay u baahan tahay ummaddan la wacyigeliyo loo sheego oo la yidhaahdo shabaabow tacaal kaalay dowladay kaalay maxaan isku dagaaloynaa maxaa dhibaato maaragtay maxaa jira maxaa dhiigga loo daadinaya maxaa ummaddan loo gumaadaya maxaa dadkan loo qarxinaya maxaa jidadka loo gelinaya qarxaya maxaa ummaddeena loo culo qabataynaya oo jidkii kismaayo xamar loo xiraya jidkii baydhabo xamar loo xiraya jidkii beledweyne iyo xamar loo xiraya oo isku xiraya ummaddan waxay rabaan dad siyaasiyiin oo maskaxdooda ay fiyowdahay maskaxdooda wanaagsan oo qalbigooda furan yahay ayay rabaan oo dadkan la wada fadhiisto geed hoostiis wax lagu xaliyo oon lagu xalilin dowlado kale oo dad kale soo galin oo dad kale maaragtayna soo dhexgelin annaga keligeena aan xalino umuurteena geed hoostiis aan ku xalino maxaa naga qaldan maxaan isku dilaynaa miyaan la dagaalamoynaa kan aad dilaysa shabaabow kan aad dilayso oo ciidanka qaranka ka tirsan 5 waqti buu dukanaya waa shahaadanaya diinta kuu banaynaysa inaad adigu nin muslim aad dishid bal noo sheega aayadda qur-aanka iyo ama xadiidka oo banaynayo in qof muslim qof ha shahaadanayo oo laa ilaaha illaa moxamed rasuulullah leh inaad dishid ii sheeg ma jirto qur-aanku ma jirto bal ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey aayado qur-aan oo leh dadka yaa la dilin xaq daryaa lagu dilin axaadiis baa jira aayado baa jira kulligooda diidaya in naf la gooyo waman qatala nafsan bigayri xaqin fakaannamaa yani qatala naasa jamiican waman axyaaha fakaannamaa axya naasa jamiican yani qofkii naf gooyo wuxuu la mid yahay yani xagdaro ku gooyo dad qof dilay caalamka o dhan qofkii naf nooleeyana wuxuu la mid yahay qof dadka dhan nooleey hal aayadoo oo amrayso inaad qof muslim a shahaadinayo inaad dishid lama helayo oo xaq daraa ku dishid xaq baa jira laisku dilayo qisaas baa jira oo ninkii dilo yani oo qof mutacamid yani camdan ku dilo oo yani oo asoo og dilo waa la dilaya diinta way qabtaa qisaas annafsu binafsin waay qisaas wax la yidhahdo laakiin dhiig islaameed qof gurigiisa joogo ama yani ciidan ah oo ciidan maaragtay security ah ama traffic ah oo dadka jidka kale celcelinayo oo dadka maaragtay ammaanka magaalada haayo oo tuugada dadka celinayo inaad dishid ilaahay kuma banayn xaaraan waay maxaad ku dilaysaa ninkan waxaa laga yaabaa shaqadan inuu u galay yani ilmihiisa inuu ku biilinayo yani bimujarad oo asaga wato shaatigii magac dawladeed ku qoran tahay adiga aad dilaysid yaa kuu baneeyay maba kuu banaan diin kuu banaynaysa ma lahan xaq dare inaad ku disho diin kuu banaynaysa ma lahan bal rasuulka alayh salatu salaam wuxuu leeyahay qatal muslim buu leeyahay ama dam muslim wuxuu leeyahay ahwan min an tuhdama alkacba buu leeyahay rasuulka alayh salatu wasalaam yani inaad naf gooysid dhiig muslim daalisid waxay ka daran tahay buu leeyahay adigoo kacbada dudumiyey yani kacbaday baa lala sameeyey dhiigga islaamka yani ilaahay wuxuu ka jeclay baa lu leeyahay dhiig goysid adigoo kacbada dumisid meel kacbada ka sharaf badan oo ka kheyr badan baa maanta joogta ma lahan wacalaykum assalam waraxmatullah barakaatu marka ma jirto soomaaliya sababaha waxay isku dilayaan waa qalad
ummaddan waxaa la rabaa in la waacigeliyo loo sheego oo la yidhaahdo dilka balaa sababka ah ama qabiilka lagu dilayo qofka ama hanti uu haysta lagu dilayo xaasidnimada lagu dilayo ama maxay ahaatay magac dawladeed buu ku shaqeeyaa shaati dawladeed buu wataa lagu dilayo kulligeeda waa xaaraan ummadda waa in la waacigeliyaa oo wixii xalaal waa in manaahij jadiid ah oo iskuulaadka looga dhigaa ilmaha markay jiilaalka ay wax baranayaan iskuul nin baa isoo wacooya oo iskuulaadka looga dhiga in dhiigga muslimka uu xaaraan yahay oo uu yahay wax ilaahay agtiisa aada ugu weyn daadintiisa calaa kulli xaal waqti badan baa ku jirnay cabdisheekh waa ku salaamaya nadarkii aad baan ku salaamayaa waa mahadsan tahay barnaamij baan ka hadlaynay gadaal baad u daawan doontaa insha allah dhammaantiin waan salaamaynaa subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuuna wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته